Twitter waxay soo ifbaxday bishii Maarch sanadkii 2006 waxaana shirkadda xarunteeda dhexe ku taala magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka. Twitter waxaa aasaasay 4 injineer Amerikaan ah waxaana lagu kala magacaabaa Jack Dorsey, Noah Glass, Ben Easton iyo Evan Williams waxaana ay ka soo jeedaan dalka Mareykanka waxaana ku takhasuseen cilmiga tiknoolajiyadda casriga sidoo kale waa hal abuurayaal ganacsi. waxaa fikradda ugu weyn leh ee lagu aasaasay ganacsadaha weyn ahna injineer dhinaca barnaamijyada cilmiga kombiyuutarada ku takhasusay ee Jack Dorsey. sanado badan ayay isku dayeen inay hirgeliyaan barnaamijkan soo jeedino badan iyo aragtiyo wadaag badan ayaa waxa ay ka dhalatay ugu dambeyn inay ku guuleystaan inay soo saaraan 22 bishii Maarch sanadkii 2006. waxaa miisaaniyadda ugu badan iskale ninka lagu magacaabo Evan Williams oo leh sheerka ugu badan ee shirkadda waxaana soo labay Jack Dorsey oo loo tiiriyo inuu leeyahay fikradda lagu aasaasay shirkaddan. sida ka arkayda astaanta waa mid u samaysan qaabka shimbirta oo kale waxaana loogu talagalay fariimaha iyo warbixinada la iskugu gudbiyo. Twitter waxaa lagu tilmaamay aaladda internetka ugu weyn ee la iskugu gudbiyo warbixinada degdega ah waxa ayna si toos ah u soo baxday soo hindisadkeedii 3 bil kadib. Twitter waxay xarumo iyo xafiisyo badan ku leedahay 25 dal oo dunida ka mid ah kadib bilowgeedii waxa uu ku baahay dhammaan dunida dacaladeeda waxa uuna soo maray heerar kala duwan xilladii ugu badnaa ee heleen dadka ugu badan ee isticmaal waxa uu ahaa sanadkii 2010 waxaana sabab u ah ciyaarihii koobka dunida ee lagu qabtay dalka South Africa waxaana xilligaa ka dambeeyay tirada guud ee isticmaalisa ilaa hadda sare u kaca sameynayaan. Koobkii ugu dambeeyay ayaa waxaa lagu soo saaray inay isticmaalaan dad kor u dhaafaya 335 milyan oo qof. dakhliga guud ee sanadkii tagay soo gala waxa uu ahaa 2.4 bilyan oo doolarka Mareykanka ah waxaana shaqaalaha guud ee ka howlgalay sanadkii tagay shirkaddan uu ahaa 3,372 ruux.